between President Museveni, myself, my brother Hassan Sheikh, and the Prime Minister Abiy, we are planning to have a meeting to also reduce the tensions that currently are in the Horn of Africa. waayahay daawada soo dhawow aniga iyo madaxweynaha dalka Uganda Museveni waxaan qorsheynaynaa in shir isugu keenno walaalaheen Hassan Sheikh iyo Abiy Ahmed si ugu yaraan aan u yareeno ama isku soo dhawaashaan u sameeyno xiisada haatan ka taagan gobolka Geeska Afrika maxaa yeelay amniga iyo xasiloonida Soomaaliya waxay saameyn weyn ku leeyihiin xasiloonida gobolka Geeska Afrika waxayna dhaawacaysaa arintaasi isdhaxgalka ganacsiga iyo maalgashiga hadalkaasi wuxuu ku soo yeeri sida aad u daawatay ama sida aad arkaysaan madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ka hadlayay shir ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay isugu yimaadeen madaxda dalalka Geeska Afrika halkaasi waxa ku sugan sida aad la socotaan madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud iyo hogaamiyaal kale oo ka socday wadamada Geeska Afrika hadalkan ayaa u dhigan ama sheegaya in kulan foolka fool ah ay yeelan karaan madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyadoona arintaasi ay dhinac ka wadaan labada madaxweyne ee Kenya iyo sidoo kale Uganda kulanka foolka ah ilaa ay haatan si madax banaan dawladda Soomaaliya ma aysan uga hadlin laakiin warar hordhac ayaa sheegaya in labada madaxweyne ee Museveni iyo William Ruto ee Kenya iyo Uganda ay wadaan arinta wada hadalka ka dhax bilaaban kara Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf xoogan ka dhaxeeyay labada dhinac ee ku aadanaa heshiiskii dalka Ethiopia ay la saxiixatay maamulka Somaliland ay ku aadan in Ethiopia la siiyo iska Ethiopia iyo Somaliland uu yahay mid sharci dara ah walibana Ethiopia ay soo faragashatay madax banaanida dhuleed ee midnimada dalka Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa xaqiijiyay kulanka labada mas'uul ama labada hogaamiye wuxuuna ka sheegay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo ay hadda halkaasi ay ku wada sugan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxda kale ee ka socda wadamada dalalka Geeska Afrika William Ruto ayaana shaaca ka qaaday in hogaamiyaasha Soomaaliya Ethiopia Kenya iyo Uganda ay qorsheynayaan in ay yeeshaan kulan ay ku yareynayaan xiisada haatan ka taagan gobolka Geeska Afrika gaar ahaan xiisada u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa kulanka ayaana la filayaa in diiradda lagu saaro xal u helida xiisada Soomaaliya iyo Ethiopia ee haatan u dhaxaysa walibana ka taagan kadib heshiiskii Abiy horaantii sanadkan uu la galay maamulka Somaliland ee u saxiixday in Ethiopia la siiyo qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya haddaba ma cadda xilliga uu qabsoomayo kulanka sida ay wararka sheegayaan ama lan xaqiijin in madaxweynaha Kenya waqtiga uu ku dhawaaqay ama kulanka xilliga uu dhacayo balse wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ee foolka fool ah oo ay yeeshaan labada dhinac tan iyo markii uu soo baxay ama uu soo shacbaxay khilaafkii xooganaa ee saameyn ku yeeshay xiriirkii labada dal ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia ilaa iyo haatan fila Soomaaliya ma aysan ka hadlin wararka sheegaya ama ka soo yeeray madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ee ku aadan in wada hadal foolka fool ah ay yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed sida la socotaan horay dawladda Soomaaliya waxa ugu soo yeeray gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya in Ethiopia wax wada hadal ay la yeelan doonin waliba wada hadal foolka fool ay la yeelan doonin ilaa ay ka laabato heshiiskii ay la gashay maamulka Somaliland ee ku aadanaa in Ethiopia la siiyo qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya marka dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Ethiopia in ay faragelin ku sameysay xadgudubna ku sameysay madax banaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaana horay ugu diiday in uu la kulmo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Abiy Ahmed isagoo arintaasi shuruudo badan ku xiray in marka hore uu ka laabto heshiiska badda lamana oga waxa haatan isbedelay ee soo dedejiyo kulanka labada mas'uul laakiin ma cadda ama si madax banaan ah looma cadeyn karo walibana dawladda Soomaaliya si madax banaan ah ma aysan uga hadlin gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo villa Soomaaliya ma aysan ka hadlin kulanka haatan madaxweynaha dalka Kenya ku dhawaaqay ee ah in uu kulan
foolka fool ah ay wadaan ama ay qorsheynayaan welibana dhinacooda ah madaxweynaha Uganda iyo Kenya ay ka wadaan welibana isugu keenayaan labada hogaamiye haddaba daawada sidee u aragtaa haddii ay dhacdo kulan ay yeeshaan Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud qaybta hoose ee faalada noogu reeb wixii fariin ah laakiin saar muuqaalka siina share garay si saaxiibada kale u gaaro haddii ay tahay markii kugu horeysay page-ka Flowde